boqor ayaa kormeeray goobta dadka waalan wuxuu ka dhex socday wiil yar oo u arkayay inuu yahay caaqil wuxuu ku yidhi waan kaa saarayaa halkan kii waalnaa ayaa yidhi sharadku waa inaad iiga jawaabto su'aalahayga hagaag ayuu yidhi boqorkii wuxuu su'aalay goormuu qofku hurdada macaankeeda dhadhamiyaa boqorkii wuxuu yidhi markii la seexdo kii waalnaa ayaa yidhi xaaladda hurdada waxay qaaddaa dareenka qofka sidee macaankaasi loo dhadhamin boqorkii ayaa dib isugu laabtay oo yidhi ka hor intaan la hurdin wuxuu ugu jawaabay sidee loo dhadhamiyaa shay intuusan imaan ka hor hurdada kadib ayuu haddana boqorkii yidhi wuu dhoola caddeeyey kii waalnaa macaanka boqornimada waa intaad boqorka tahay oo keliya haddii ay dhammaato ma jirto boqorkii ayaa ka helay xigmaddii ninkii waalnaa amrayna in si degdeg ah ninkii waalnaa loogu keeno qasrigiisa markii ay habeen noqotay dhammaan qamro ayaa la cabay ilaa ninkii waalnaa ma ahee boqorkii ayaa koob u soo taagay wuuna diiday yidhina boqor yahow waxaad u cabaysaa waxaan si aad u noqoto anigoo kale haddii aniga aan cabanayaan noqonayaa tusaale ahaan boqorkii ayaa ku waantoobay hadalkii koobkiina dhinac isaga leexiyey kadibna bilaabay xashiish cabid waa inoo mar kale